soo bararkan waxaa keenay infection ay qaaday mid kalena waan ku tusaa feeri waxaan buluuga ma aragtaa buluugan soo socdo waxaas maa kaas meesha gacantaan ku hayo dhiiggeeda wax yar intuu qolkan uu kusoo noqonaya qolkaa basaa raba in lagu galo bukaankaas waa 18 jir gabara bukaankan waxaa laga hayaa wadnaha valve waxa la dhaho qayb wadnaha xanuun ay ku dhalatay maaha waa xanuun oo ku dhacay xanuunkana rheumatic disease-ka ana wuxuu ka imaadaa wax iska fudud oo simple ah bacteria streptococcal infection la dhaho qumanka ku dhacaysa ama sore throat ahana ilmihi loo qabana oo qunka kadibna haddii aan la daaweynin waqti dhaqsa la daaweynin difaaciga jirka intuu bacteriada weerari lahaa iyo jirka qaybo kamid u weeraraya taasoo keenaysa waxa la dhaho autoimmune jirka asaga inuu isweeraro isla dagaalo aan xubnaha uu saameynay waxa kamid ah wadnaha kamid ah oo muunsan oo khatarsan jointska kamid ah ama laabatooyinka iyo maskaxda iyo kaliyaha now cunugtan wadnuhu ka saameeyay meel kale alxamdulillah kama saameynin valveskeeda mitral valve waxa qayb uu ka saameeyay now xanuunka rheumatic disease-ka waa xanuun khaasatan africana common ku ah preventable nool xanuun oo laga hortagi karaa saan ku sheegay hadii ilmihi qumanka laga daaweeyo hadda naftigeeda waxa la isku dayayaa inay maaragtay vaccine la soo saaro oo talaal waxaan ka hortagaya badanaa ilmaha wuxuu ku dhacaa maaragtay 5 sano ilaa 15 inta u dhaxaysa ay u badan yihiin ilmaha ku dhaco saan sheegayna waxay u baahan tahay xanuunkan mar hadduu dhaco dhib weyn u keeni karaa wadnaha iyo maskaxdaba and daawada ugu fiicanna waxaa waaye prevention is better than cure يعني كهرتاجا يا كمهم داوينت كستول الداوين كره هدنا من هدول دعو ودني وسامي مرة قاركود يعني نبوين وكيني كرا ودكتور عبد القادر وبيدياتريك كارديولوجيستا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته